fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkan saar subscribe kadibna riix calaamada gambaleelka mahadsanid. horyaalka Bundesliga ayaa maanta si rasmi ah u bilaaban doona isaguna noqon doona horyaalkii ugu horeeyay ee dib u bilowda kadib furitaankii xanuunka coronavirus kaasi oo ku faafay adduunka oo dhan. kulamada maanta la ciyaari doona ayaa toddobaadkii 26aad ee Bundesliga xil ciyaareedkan marka la eego inay kooxaha intooda badan wada ciyaareen 25 kulan hore marka laga reebo laba koox oo hal kulan ay wada ciyaareen oo baaqi u yahay. horyaalka Bundesliga ayaa lahaa xiise gaar ah xil ciyaareedkan iyadoo kooxo badan ay ku tartamayeen koobka xil ciyaareedkan waliba oo la go'aamin kooxda ugu cadcad ee ku guuleysan doonta horyaalka Bundesliga dalkaasi Jarmalka. kooxda difaacanaysa horyaalka waa Bayern Munchen ayaa hogaaminaysa horyaalka iyadoo 50 dhibcood ka heshay 25 kulan ay ciyaartay ilaa haatan xil ciyaareedkan. waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Borussia Dortmund kuwaas oo leh 50 dhibcood kaliya 4 dhibcood ee ka dambeeya hogaamiyaasha horyaalka ee Bayern Munchen. kooxda lagu magacaabo Rebel Leipzig ayaa ah mucjisada tartanka xil ciyaareedkan iyaduna dhunta u gashay labada kooxood ugu weyn dalkaasi Jarmalka waa horyaalka Bundesliga Bayern Munchen iyo Borussia Dortmund. dhanka kale kooxda Borussia Mönchengladbach ayaa iyaduna leh 49 dhibcood iyaduna 6 dhibcood ee ka dambeeysa hogaamiyaasha horyaalka ee Bayern Munchen. haddii aynu eegno boosaska loo kala tartanka ee kooxda Eisenbahn ayaa ugu hooseysa horyaalka iyaduna leh 16 dhibcood iyadoo 10 dhibcood ee ka hooseysa kooxda kaalinta 15aad ee ku jirta waa FC Meissen halka ay kooxda lagu magacaabo Werder Bremen iyo waliba Felsendzorlo ku dagaalamaya sida uu sii joogi lahaayeen tartanka xil ciyaareedka dambe. dowladda UK ayaa ogolaansho siisay maamulka Premier League in la bilaabo tartanka bilowga bisha June ee soo socota iyadoona oo dalka laga qaaday xayiraadkii saarnaa. wargeys lagu magacaabo The Sun ayaa sheegaya inay jiraan xidigo doonaya inay helaan jawaabo ku saabsan caafimaadkooda kahor intaysan la bilaabin horyaalka Premier League wadankaas Ingiriiska. arrintaas ayaa keenaysa in dib loo dhigo kusoo laabashada tababarka buuxa ee kooxaha iyo waliba dib u bilaabashada ciyaarista kulamada horyaalka Premier League dalkaas Ingiriiska. kooxaha 20ka ee Premier League ayaa maalinta Isniinta ah kulmi doona si loogu codeeyo marxaladda ugu horeysa ee ku soo laabashada tababarka buuxda. madaxweynaha La Liga Jeffer Tebes ayaa la kulmay 20ka koox ee horyaalka La Liga asaguna u sheegay qorshe ugu dambeeyay lagu dhameystiraya xil ciyaareedka 2019-2020. maamulka La Liga ayaa kooxaha u sheegay in magaalooyinka kulamada ay ka dhici doonaan ay ku aadi doonaan diyaarado qaas ah halka markii hore ay ku tagi jireen basas kooxda si loo yareeyo khatarta si uu faafo cudurka safmarka ee COVID-19. kooxaha La Liga oo dhan ayaa awoodeen inay diyaarad qaas ah ku tagaan magaalada kulanka ka dhacaysa sidaas darteed maamulka La Liga ayaa mas'uuliyadaasi qaadaya. sidoo kale maamulka La Liga ayaa kooxaha u sheegay isbuucii in la ciyaari doona 3 kulan. 7 bisha Agoosto ayaa u badan tahay in la ciyaaro kulanka lugta labaad ee wareegga 16ka tartanka Champions League oo u dhaxeeya kooxaha Real Madrid iyo Manchester City. haddii kulanka la ciyaaro waqtigaasi waxaa 174 maalin ay kasoo wareegi doonta maalintii kooxda Man City 2 gool ku garaacday kooxda Real Madrid kulanka ka dhacay garoonka Estadio Santiago Bernabeu. haddii wax walba ay u dhacaan sida loo qorsheeyay kooxda lagu naanayso Los Blancos ayaa kulankan gali doonta iyagoo 3 bilood qaatay tababar isugu diyaarinta kulankaasi. kooxda Zinedine Zidane ayaa tababar qaadan doona dhowr toddobaad sidoo kale ee wada ciyaar dhammaan 11 kulan ee La Liga waliba dhameystir doonaan horyaalka dhamaadka bisha July kahor intaan la joojin kulamada. Manchester City ayaa ugu cadcad in ay Real Madrid garaacdo waliba iska xadariso wareegga xiga laakiin bilo kadib ma jirto cid la oran karo way ugu cadcadahay waxaana la ciyaari doona kulan xiiso leh maadaama labada kooxoodba si fiican isku diyaarin doonaan. oo ku maasantahay daawashadaada fadlan subscribe kadibna riix calaamada gambaleelka mahadsanid.